لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا حق الله هذا حق الله إنا لله وإنا إليه راجعون الله u naxariistay waxaa maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Garaad Cali Buraale oo kamid ahaa isimada dhaqanka ee gobolka Sool isimo siyaasiyiin kala duwan iyo kumanaan khalqiya ayaa ka qayb qaatay aaska Garaad Cali Buraale oo maanta laga dheehanayay wajiyadooda murugo aad u fara badan Allah u naxariistay garaadku waxa uu caan ku ahaa ka shaqeynta nabadda laba casho ka hor ayuu ku geeriyooday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib xanuun uu la ildarnaa maalmihii u dambeeyay dhammaan xubnihii ka soo qayb galay aaska Garaad Cali Buraale ayaa uga tacsiyeeyay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay garaadku in alla samiriyo iimaan ka siiyo bedel khayr qaban ugu bedelo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ku sugannahay aaskii Garaad Cali Buraale Xasan Shiil oo ku geeriyooday saddexdii bisha degmada Laascaanood ee gobolka Sool maantana lagu aasayo xabaalaha Laascaanood ee Xargiga waxaanu leenahay dhammaan shacabka reer Sool iyo qoyskii iyo eheladii uu ka dhintay samir iyo iimaan Allah inaga siiyo waxaan naga dhintay nin culus waa ragna waa ka dambeynaya marka hore sabir iyo iimaan iyo awal khayr qaba Ilaahay naga siiyo amiin guud ahaan Ilaahay naga siiyo gaar ahaan beeshii oo iyo guriyihiisii iyo eheladii si gaar ah Ilaahay sabir iyo iimaan iyo awal khayr qaba uga siiyo kada waa ergo waxa ergo loo yahay ahadka Allah u dambi dhaafo Ilaahay ha u dambi dhaafo salaada ku tukadeen iyo ducadiina ha ugu dambi dhaafo idinka ajar iyo xasanaad Allah idinka siiyo waxaan idinku soo dhaweynaynaa mid jooga oo goobta yimid iyo mid saxaafadda ka soo hadlay iyo mid maqan oo daruuftu saamixi weyday intaba waanu ka gudoonay tacsida Garaad Cali Buraale Ilaahay ha u naxariisto ilaahay waxaan ka baryayaa samir iyo iimaan Ilaahay naga siiyo eheladii iyo asxaabtii iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaba ilaahay samir iyo iimaan هاي نقوض الشيء بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى وحليه كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أولنا حريصته Garaad Cali Buraale Xasan Shiil gabadha weyte Ilaahay jannati firdawsaha ka waraabiyo isagana wuxuu ahaa adoon islaama oo ifka lagu jecel yahay ilaahayna wuxuu yiri qofkii ifka lagu jecel yahay aakhirana waa lagu jecel yahay jannadii firdawsa Allah ka waraabiyo intii uu ka dhashay eheladiisina Ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo dhammaan golaha isimada Soomaaliyeed oo dhan Ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo inuu khayr qabo waxa lagu garanayaa isimadiisii oo aan dhowr iyo 10 sano gobolka Imaba ka soo qayb galay xalaashii si ka soo qayb galay waa ducaysan yahay la waxaan hadalka kaga baxaya Allah u naxariisto beelaha darisiyada maanta oo la aasay garaadkii ka mid ah isimada gobolada Sool Sanaag iyo ay Garaad Cali Buraale waanu ka xunahay dhalasho iyo deegaanba inay isimadoodu nagala soo qayb gali waayaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh uga bareynaa in Ilaahay jannada firdawsa geeyo in Ilaahay kitaabkiisa midigta uga dhiibaan Ilaahay uga bareynaa amiin dhamaanteena in Ilaahay inoo ka daba naxariisto wada aynu wada sugayno amiin halkan waxaan tacsi rabaa inaan ka gaarsiiyo salaadiinta iyo ugaasiyada iyo boqorradu raalli bay iga ahaanayaan aniga waxa ay soo diray inaan ummadda uga tacsideeyo anigoo ku hadlaya afkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu gobolka Sool oo dhan inuu tacsidaa soo gaarsiiyo Xamse Raadeeye telefishinka RTN Laascaanood